Assalaamu calaykum saaxiibayaal. Mid ka mid ah asxaabteyda ayaa wuxuu isoo weydiiyey sideen u sameeyey amaba sidaad u sameysay muuqaalkan aad hadeertaan inoo sharxayso amaba hadeertaan idin sharxayo moobilkan meesha aan ka keenay iyo qaabka aan screenka aan usoo saaray ayuu isoo weydiiyey. Marka hadeer ayaan isla sharxaynaa. Haddii aynu youtube-kaas subscribe ku ahayn hadeertaan subscribe inoo dheh. Waxaad ka heli kartaa muuqaalo ku saabsan tiknoolajiyada iyo editing-ka adigoo moobilkaaga markaas ku edit gareynayo. Haddii in sanadka cusub la gaarin 500 oo subscribe aynu gaarno, waxaan bilaabi doonaa course free ah. Ka mid noqo asxaabta course-kaas ka qayb qaadanayso haddii aad u baahan tahay inaad barato video editing-ka. Okay, muuqaalkeeni ayaa gudaha usii galeynaa. Soo furo app-ka Pinterest. Pinterest markaad soo furto aad qaybta searching-ga markaa aado waxaad qoraysaa iPhone ayaad qaybta searching-ga ku qoraysaa. Markaa qaybta searching-ga iPhone ku qorto oo searching gareynaysaa, iPhone-adan ayaa kuu soo baxayo oo iPhone-adii ugu dambeeyay ee Apple ay soo saartay. Aniga ma rabno, waxaan rabnaa screen-ka kore ayaa rabnaa. iPhone application-ka ayaad ka heli kartaa. Marka kan ayaa hadda soo degsanaynaa. Kan markaa soo degsano waa ka baxaynaa. Mid kale ayaa sii raadinaynaa anigoo kan ku dhex jirno. Adigana midkii ku anfaca ayaa la soo degi kartaa. Marka waa sii raadinaynaa. Midka rabto ayaa soo degsanaysa. Kan adeertaan saas cadaanka u ah background-kiisa ma tirtirno. Ha soo degsan mid background-kiisa tirtiran soo degso. Amaba markaa soo degsato oo kaleeto background-ka ka tir. Caadi ayuu lagu tiri karaa. Kan oo kale ayaa la soo degsanaa oo background-ka ka tirtiran. Waa soo degsanaynaa. Markaa soo degsano kadib waa ka soo baxaynaa. Waxaan tegaynaa application-ka CapCut. CapCut markaa tagno new project ayaa ku dhufanaynaa. Waxaan soo qaadanaynaa background image. Sawirkan ayaa ku dhufanaynaa. Markaa soo qaadano kaleeto loogada CapCut ayaan isku dileedaynaa. Waa sii jiidaynaa. Muuqaalka ayaa dheereysanaynaa. Markaa muuqaalka dheereysanayo kaleeto waa kaa. Waxaan soo qaadaynaa screen-ka aad soo duubatay. Screen-ka aad soo duubatay ayaa soo qaadaysaa. Screen-ka markaa soo qaado kaleeto xoogoo yar waa ujeedaa shaashada ayaan la ekeysiinay. Haddana waa kasii yareynaynaa si uu taleefanka screen-ka u soo degsanay kor uga saarno. Okay, muuqaalka ayaa in yar iska jiraynaa waayo anaga tusaale ayaa ka rabnaa. Hadda wax ma edit gareynayno. Waa iska dileedaynaa. Markaa iska dileedno kaleeto waa kaa. Waxaan rabnaa moobilka ayaa u baahanahay. Moobilka bis ayaa naga dhiman. Moobilka ayaa soo qaadanaynaa. Moobilka markaa soo qaadanayno waa sii wadaynaa. Waa kaa. Aniga kan ayaa rabnaa inaan soo qaado xoogoo yar shaashada la ekeysi oo in moobilka aad hadeerta gacanta ku haysa inaad ka dhigtaa la rabaa. Okay, labadaada far ku qabo wax yar sii weyn ka sii dhig. Okay, waa kaa. Waa ujeedaa hadeertaan sida aan ka dhigayna. Waa sii jiidaysaa. Muuqaalka ayaa la ekeysiinaysaa. Mala rabo in muuqaalka ka soo yaraado. Waa kaa. Hadeertaan muuqaalkii sidaan ayaad ku haysataa. Muuqaalka markaa sidaan aad ku samaysto waxaa u baahan tahay waxyaabo text oo kale, effects, video, sound oo kale inaad ku soo darto. Muuqaaladaasna gadaal ayaan ka sharxi doonaa. Haddii aad muuqaalkan waxaad ka faa'iiday YouTube-kan, haddii ay subscribe ku ahayn subscribe dheh. Waxaan ka codsanaa in TikTok-gaana follow na soo dhahdo. Sanadka cusub inta la gaarin haddii aan TikTok-gaana 10k followers aan gaarno, YouTube-kana 500 oo subscribe haddii aynu gaarno, waxaan bilaabi doonaa course free ah. Si aad ugu qayb qaadato subscribe na soo dheh.